taliya ku-xigeenka guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland sareeyo guuto Xasan Cali Cawad ayaa kormeer shaqo ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada Burco. Xabsigan oo ah kan ugu weyn xabsiyada Soomaaliland oo dhawaan madaxweynuhu xadhiga ka jaray ayaa waxa ka warbixiyay xaaladda xabsiga iyo maxaabiista ku sugan yihiin taliyaha qaybta asluubta gobolka Togdheer Gaashaanle Sare Jaamac Baadi. warbixinkaas iyo boqolkiiba boqol bay shaqadiisu u soconaysaa sidii loogu talagalay bay u socotaa mid dumarka iyo blog underage ama caruurta ah 4 blog oo ragga ah iyo hal blog oo administrationka xafiisyada waxa kale oo iyana jirta oo aanu haynaa agab badan oo agabkii maxaabiista wax lagu bari lahaa si ay uga baxaan hadhowto iyagoo xirfad leh. taliya ku-xigeenka guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland sareeyo guuto Xasan Cali Dheere ayaa kula dardaarmay ciidamada asluubta inay si fiican ula dhaqmaan maxaabiista ku jira xabsigaasi. dawladda Soomaaliland dhistay ee hogaaminayo xisbiga kulmiye ee ugu talagalay inuu xabsiyada bari oo dhan inuu wixii dheeraada uu buuxiyo. ilaaha idinka dhigay askar iyo saraakiil u adeegta ummadooda oo xabsigan haysa ayaa mahad leh. xabsigu waa qurux badan yahay, waa wanaagsan yahay, waa blogyada aad arkaysaan ee ay ogtihiin gacanta ku haysaan. idinkana waxa la idin baahay inaad saas oo kale noqotaan oo quruxda xabsigu leeyahay idinna quruxdeedii ay yeelataan. waa inaanu halkan inoogu jirin qof maxbuus waqti dhaafa oo maxkamadii awoodda u lahayd ay kiiskiisa qaadi weyday. sharcigu waxbuu inoo ogol yahay inta inaynu hayno. sharcigu intuu inoo ogol yahay waa inaynu ku ilaalin. sidoo kale taliyaha ciidamada asluubta waxa uu kulan la qaatay gudoomiyaasha maxkamadaha gobolka Togdheer iyo madaxa xeer ilaalinta gobolka. kulankani oo albaabadu u xidhnayaan ayaa markii uu dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay simaha gudoomiyaha rafcaanka Garsoore Cabdiwali. iyana waxaanu isla garanay in hore loo sii wado cadaaladii laga shaqeynayay ee dhamaantii aan wadnay. waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa oo markasta ku faraxsanay wada shaqeynta wacan ee naga dhaxaysa hay'adahaas. insha Allah bidni kaleena waanu sii wadana maxkamadahan iyo dhammaan cid kasta oo khusayso maxay tolay cadaaladu. anaga kormeerkaygan wuxuu daaranaa u kuurgalka bahda cadaaladda gaar ahaan garsoorka iyo xabsiyada wada shaqeyntooda. waxaan ka wada hadalay in hawsha garsoorka iyo wada shaqeynta xabsiyada la dardargeliyo oo aanay dhicin in lagu ilaawo maxaabiis xabsiyada taasoo aanu fulinayno siyaasadii dawladda kulmiyo ee ahayd in kor loo qaado bahda cadaaladda. Xabiib Ciga Xasan, Universal TV, magaalada Burco.